wixii lagu soo arkay maamul goboleedyada oo hadda aan aaminsanahay anuu dadkii federaalka ku jacjacsan ma ahayn laakiin markaan arkay guddoomiyaashii la magacaabay in xamar guddoomiye aan ku habboonayn meeshii loo magacaabay in la iska magacaabayo iska fududahay in qof influencegiisa loo magacaabo in dadku maamuladooda yeeshaan oo iyagu soo magacowdaan runtii aad baan u soo dhawaynayaa sababtoo tahay waxaan ku aragnay xamar oo kale xaggana tegi lahaa marka waxaa dhacday in guddoomiyihii gobolka banaadir oo ku dhawaaqay inta soo arkay dhul qurxoon oo maamul leh oo maamulkiisa amnigiisa sugtay markuu inta maaragtay laabtiisii hiir kacay oo damcay inuu tiigsado wuxuu soo arko qurxoona in qaraf la siiyo la gowraco arrintaas runtii aad bay nooga yaabisay dadkaasi waxay yiraahdeen waxaana dhibay kala qoqobnaanta waxaana dhibay madaxweynayaasha tirada badan waxaana dhibay calamada tirada badan allaha hadduu alla yahay oo nin islaam ah tahay madaxweynow dawlad midaysan oo centralized ah rabnaa now equal centralization macnaheedu ma aha sida hadda walaalkay u fasirayay in gobernatore iyo maxaa la yiraahdaa DC laga magacaabo xamar ma waxa weeye devolution bedalkan u baahay devolution dawladda Ingiriiska bilowday in gobol walba la yiraahdo maamuladaada hoose dooro laakiin ma aha madaxweynayaal 200 madaxweyne tartaba adduunka baan ugu wareeray ma qalaysaa iyo calamaan aan garanaynin dalkan hal la xoojiyo ما هذا قبول كبارد قولون كم يوكا القبول كبارد عاصمة الصومالية دوية هذا ما ندي كرمال محايط على قارة لي يبالكي إن الدلي أو سحن لو الدلي الحري هذا وحان نجيب شنو ووجدي ورماشة هدي الدولة دو كجر توح لقى قبطو هذا وح لقى قبه هنا لا تفصل walaalayaal meeshan waxa ka dhacday dhibaato aan markaan bilaabayn oo marar badan soo noqotay hadda mid noogu dambeysay shalay hadii waagu bari oo indhaha kala qaadnay ciidan baan ugu wareegsanaa ciidanka ugu wareegsan anagu ma lama aanan socon ciidan dawladeed iyo tiknika ugu wareegsanay waxna loogu sheegay in guryaha la burburinayo oo dhulka dhan la burburinayo wax lagu burburinayo aanan helin horena aan loo kugu digin haddii ay burburiyeen anigu ciidan xoog kuma dhamin oo dad masaakiin oo shacab ahaan lahaye waxay dhibaatada kala cadeedkii burburiyeen oo ciddii hadasha afka qora uga garaaceen war dadka naga qabta war idinkaa shaarb wadatiin war waxaana la ku leynaa waa ciidankiinni war waa militarigiinni waa boliiskiinni lambarradii ku wada dhegan kow haddii kale oodna naga qabanayn naga taga madaxa noo noqonina awalba idinkaa isdoorateen waxaadna isu doorateen inaad annagana dishaan oo shacabka laydaan waa aadaya uma wallahi waa aadaya hanti diyaas bara oo la leeyahay dhulay ku dad shacab miskiinay masaakiinaan kaaga kaca la leeyahay oo ana xoog loo shaar dawlad wata wallahi ninka ciidamada u sareeya inta uu sameeyay ciidamada shaqada lu kule asagana guriyayna jajabsh waa damqanay waa dhibaataysan hanti la'aan nahay dad la'aan nahay waana dhaawacay waa dilanahay cid ilaa hadda wax ka qabatana ma jirto ilaa anagu meediyaha ay ka cabashadeen oo soo gaarsiino waxaan doonaynaa in talaabta ugu horeysa inta mas'uuliyadda dadka xilka loo dhiibay dadka shacabka u soo adeegsaday inay wax rabaan ka sameeyaan waxaan rabnaa marka dawladda waxaan ka codsaynaa dadka masaakiinta nahay xoog ma lihin haddii aan ku rooyahay dacwo ma naqaan dhulka meeshaas ilaa lagu arsaaqaa meeshaas joogna sideed jiraan ahay ولكن هذه الكورة دول حفيد أنت كم الدعوة حتى ما أودا إن يعني أن جورك أن كريس ما أودا جوري صار يلا دولد وحنك عصنا إن أي أرنتان أي صوب بينها فالعد أي كانتو بينها سيد إلي مقدوجة معنا سيد نقصد هذه ويانا أول بكعر وحي حول لغته باش لا ينقص مال الدولة كجر وحرنا مركا نظام كاس غلطن وقرعان ويعني ولقينا أنا أرك ونان مقالنا لكو سميي وحربنا مركا وعد امر كاس بحصي دولته ودي دوله ما قدرت الا حسابتمتو aniga baan rixlaan leeyahay 100 hadii ilaahay ku maayo $30 aan ku keenaa tareediisa ma ku keenaa sarkuus ku keenaa dhagax meeshaas la keenoo bisaayay ilaahay laga ma cabsanin dhibaato dhacday war dawladiyay hadaad xilmaan leedihiin hadaad wasiir leedihiin hadaad madaxweyne ra'iisul wasaare leedihiin ama dadka hadaad gudoomiye gobol leedihiin ama dadka shacabka ka qabta haddii dalkan dawladu ka jirto waxaan leenahay
ha soo farageliyeen arrintaas